inkastoo muddadii ay burburka iyo dawlad la'aanta haysatay Soomaaliya ay jireen dilalka kala duwan ee loo geysanayo wariyaasha Soomaaliyeed iyo kuwa ajaanibta ah ee soo gaaray caasimadda Soomaaliya haddana bishan aynu ku guda jirno ee Agost waa markii si dardar leh ay ku bilowdeen dilalka joogtada noqday ee lagu hayo saxafiyiinta Soomaaliyeed waxaana bishaasi 11keedii sanadkii 2007 meel wax yar u jirta ilanka idaacadda Hoon Afrika ay kooxaha hubaysan ku dileen Allah u naxariistay Mahad Axmed Cilmi oo kamid ahaa howlwadeenada idaacadda Hoon Afrika sidoo kalena ahaa agaasimaha idaacadda codka caasimadda Capital Voice oo Hoon Afrika ku lamaansanay daqiiqado kooban kadib duugtii Mahad waxaa qarax loogu xiray kursiga gaarigiisa naftiisa ku waayay Cali Iimaan Sharmaake oo kamid ahaa milkiilayaasha shirkadii warbaahinta Hoon Afrika oo qudheeda ay qaateen ururka Al-Shabaab Hoon Afrika oo ahayd radio weysi aad bulshada Soomaalida u dhageysan jirtay ayaa dilalkaasi qorsheysan kadib ka soo guurtay xaruntii ay muddada badan ku shaqeynaysay ee ku tiilay ifka xalana iyadoo qalabkeeda u soo raratay suuqa bakaaraha oo ay horay u deganaayeen idaacado fara badan oo maxalli ah hase ahaatee soo guuridoodii kama baajin dilalka lagu hayay warfidiyeennada waxaana muddo kooban kadib gudaha suuqa bakaaraha lagu dilay agaasimihii idaacadaasi Saciid Tahliil Axmed Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala waxa uu kamid ahaa wariyaashii ay wada socdeen maalintaasi waxa uu ka waramayaa wixii uu ka xasuusto iyo halkii ay ku sii jeedeen Allah u naxariistay mid kamid ah kuwa ugu xusuusta badan waa Saciid Tahliil Axmed agaasimihii Hoon Afrika oo anagoo wada soconna la dilay hal mitir ayaa noo dhaxaysay waa iga horeeyay Saciid aniguna waa daba socday xabadana dhabarkayga ayaa laga soo riday xusuusteedu waxay ahayd Saciid hadalkii ugu dambeeyay intii uu san dhiman ee uu yiri aniga iyo Muqtaar Maxamed Haraabe oo isna maalmo kadib la dilay Allah uu wada naxariistay wuxuu ahaa maanta xaaladu caadi ma ah inta markuu yirina waa wax yar buu naga saan hormaray xabadu markii ku dhacday wuxuu ugu horeeyay arkay inuu dhulka ku sii dhacay ayay ahayd markuu dhulka ku dhacay wax yar ayaan dhinac u orday kadibna dib baan u soo eegay waxaan arkay labo nin oo Al-Shabaab ka tirsan oo si darandoori ah xabad maaragtay ugu wada maalintaasna waxay ahayd maalin Al-Shabaab iyagoo ay noo yeereen iyagoo ay nacazuumeen iyagoo ay rabeen dadka madaxda idaacadaha ka muxuu ahaa dabcan say noo sheegeen inay fariimo la socodsiiyaan laakiin anagu aan markii dambe fahamnay inay ahayd inay rabeen inay Saciid dilaan inta kalena ay maaragtay ku quusiyaan wixii intaasi ka dambeeyay dilalka wariyaasha ayaa noqday kuwo joogta waxaana idaacadaha wariyaasha ugu badan ay ka geeriyoodeen ama laga dilay kamid ah Radio Shabeelle oo iminka ah idaacadda ugu faca weyn idaacadaha ka jira magaalada Muqdisho agaasima ku-xigeenka idaacadda Shabeelle Maxamed Axmed Jimcaale ayaa iga warbixiyay dhibaatadii Shabeelle ka soo gaartay meertadii beegsiga wariyaasha waxaa xusid mudan inta howsha saxaafadda ay waday idaacadda Shabeelle oo mid kamid ah warbaahinta ugu afka dheer dalka kamid ah ku naf waayay amaba laga dilay qaar badan oo wariyaashii idaacadda ka howlgeliyay kamid ahaa ay kamid ahaayeen mas'uuliyiintii idaacadda Shabeelle haddii aan ku dulmaro wariyaashaasi mas'uuliyiintaasi aan ku weynay waxaa kamid ah kusimihii gudoomiyaha Shabeelle Bashiir Nuur Geedi oo la dilay October 19keedii sanadkii 2007 kooxo hubaysan ayaa xilli fiidkii ah waxay ku dileen xaafadda Xamar Jadiid oo u deganaa magaalada Muqdisho kana tirsan degmada Wadhigley ee gobolka Banaadir 2 Janaayo 2009 waxaa la dilay wariye Xasan Nayo Xasan
oo ahaa wakiil wareedkii idaacadda Shabeelle ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose kaas oo lagu toogtay gudaha degmadaasi Afgooye 22 May 2009 waxaa la dilay Cabdirasaaq Maxamed Warsame Gaadaco oo ka tirsanaa wariyaasha Shabeelle waxaa lagu dilay xaafadda Xamar Bile ee degmada Wadhiigley xilli uu shaqada ku soo jeeday May 26 2009 wariye Nuur Muuse Xuseen Nuur Inji ayaa waxa uu geeriyooday dhaawac ka soo gaaray dagaal beeleed markaasi ka aloosnaa qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan oo uu u tagay sidii uu warbixin uga soo tabin lahaa 7 Juun 2009 agaasimihii idaacadda iyo TV-ga Shabeelle Mukhtaar Maxamed Hiraabe ayaa dabley hubeysan waxay ku dileen gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha isla maalintaas waxay si bareera u dhaawaceen Axmed Cumar Xaashi Axmed Taajir oo ahaa madaxii barnaamijyada idaacadda Shabeelle December 3 2009 qaraxii ka dhacay hoteelka Shaamow ee magaalada Muqdisho waxa uga dhintay idaacadda Shabeelle wariye Maxamed Amiin Aadan Cabdulle iyadoo sidoo kale uu halkaas ku dhintay Xasan Zubeer Xaaji Xasan Fantastic oo farsamayaqaan xilli ka soo ahaa idaacadda Shabeelle ururka al-shabaab oo dowladda dagaal kala soo horjeeday ayaa awaamiir culus ku soo rogay idaacadaha maxalliga ee ka howlgala Muqdisho iyagoo amar ku bixiyay in idaacadaha aysan baahi karin heesaha iyo wax walba oo muusiga ku jiro iyagoo arintaasi u sababeeyay in diinta aysan raali ka ahayn waxaana ay idaacadaha agaasimayaashooda ku wargeliyeen in astaanta koorsheegtada uu warkoodu soo galayo ay ka dhigtaan nashiidooyin ama dhawaqyo aan muusig lahayn ururka ayaa sidoo kale cod dheer ku sheegay in idaacadaha ay ka mamnuuceen baahinta maalmaha xorriyadda Soomaaliyeed hase ahaatee Radio Shabeelle oo idaacadahaasi qayb ka ahayd ayaa qaadacday go'aankii shabaab waxaana idaacadda xilli habeen ay ka soo guurtay xaruntii ay ka deganeyd suuqa Bakaaraha iyadoo soo gabaadsatay dhismo ku dhow garoonka diyaaradaha Muqdisho waxayna durba bilaabeen sii deynta xuska maalinta xorriyadda Soomaaliyeed waa kan agaasima ku-xigeenka idaacadda Shabeelle Maxamed Axmed Jimcaale oo iga waramay tirada wariyaasha Shabeelle laga dilay soo guuridoodii kadib Janaayo 28 2012 rag hubeysan ayaa waxay dileen agaasimihii idaacadda Shabeelle Xasan Cusmaan Cabdi Xasan Fantastic kaas oo lagu dilay xaafadda Nasteexa ee degmada Wadajir 23 May 2012 kooxo hubeysan ayaa degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir waxay ku toogteen Allah u naxariistay wariye Axmed Cadow Canshuur oo kamid ahaa wariyaashii shabakada warbaahinta Shabeelle Abriil 5 2012 Mahad Salaad Aadan oo wakiil wareed uga ahaa idaacadda Shabeelle magaalada Beledweyne ayaa kooxo hubeysan waxay ku dileen gudaha magaalada Beledweyne ee bartamaha Soomaaliya October 8 2012 Allah u naxariistay wariye Maxamed Maxamuud Tuuryare ayaa waxa uu geeriyooday dhaawac ka soo gaaray weerar dabley hubeysan ay ku qaadeen October 2012 waxaana uu ku geeriyooday isbitaalka Madiina oo xaaladiisa caafimaad lagula tacaalayay January 18 2013 magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Wadajir waxaa kooxo hubeysan ay ku dileen Abwaan Cabdixareed Cusmaan Aadan oo ka tirsanaa howlwadeenada idaacadda Shabeelle xilli uu ku soo jeeday maalin Jimco ah idaacadda oo markaasi howlo shaqo uu ugu soo socday 2 November 2015 Mustafa Cabdinuur oo loo yaqaanay Shafaana kana mid ahaa saxafiyiinta idaacadda Shabeelle gaar ahaan kaamiramanada idaacadda ayaa ku geeriyooday weerarkii hotel saxafi ee magaalada Muqdisho 27 September 2016 wariye Cabdicasiis Maxamed Cali Xaaji oo ka tirsanaa howlwadeenada Shabeelle ayaa lagu dilay degmada Yaaqshid ee magaalada Muqdisho sidaas ay markaasi ay isu daba yaaleen dilalkaasi kala duwan oo markaasi inta badan sida aan horeyba kugu soo sheegay ahaa kuwa bareer ah oo lagu bartilmaamsaday wariyaasha ka howlgelaya idaacadda Shabeelle Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala waa agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta waxa uu ii sheegay in waqti kooban gudahood Radio Muqdisho laga dilay 11 saxafi oo ay ku jireen lamaane nolosha wadaagay iyo habla saxafiyiin ah runtii wasaaradda warfaafinta saxafiyiinta ka howlgalaya raadiyaha iyo telefishinka qaranka iyo wakaaladda Soona dib weyn oo ay la qabaan saxafiyiinta Soomaaliyeed ayaa soo gaaray ilaa iyo 11 kamid ah shaqaalaha ka shaqeynayay warbaahinta qaranka ayaa la dilay laga soo bilaabo sanadka 2009 waxaa kamid ahaa uguna horeeyay Allah u naxariistay Sheekh Nuur Maxamed Abkey oo ahaa tifaftiriye wakaaladda Soona waxaa kaloo naxdin gaar ah lahaa inay ku jireen laba qofood oo qoys ahaa
liibaan cali nuur iyo hindiya xaaji maxamed oo caruurtoodii oo aqoon ah habarana ah labadiba ah ay joogaan sidoo kale allah naxariista cabdisataar daahir sabriye oo isaguna ahaa madaxa barnaamijyada oo labadooda maalin qora la isla dilay injineerkii axmed shariif farsamada guud raadiyaha iyo telefishinka mas-uulka ka ahaa sagal muxuu ahaa salaad cusmaan oo iyadana ahayd gabar mustaqbal leh oo saxafiyada oo maaragtay soo koraysay kuwaas ayaa maaragtay muxuu ahaa kamid ahaa waxaa iyaguna dhaawacay soo gaareen dhowr iyo 10 kamid ah shaqaalaha sanadkii 2012 ayaa ahaa sanad ay aad u kordheen beegsiga saxafiyiinta Soomaaliyeed waxaana sanadkaasi iyagoo wata howlahooda saxaafadeed gudaha Muqdisho lagu dilay in ka badan 20 saxafi TV-ga Universal ayaa kamid ah xarumaha warbaahineed ee aan ka badbaadin ololihii laynta wariyaasha waxaana la dilay wariyaal ka sokow rag badan oo majaajilistayaal ah oo ka howlgali jiray telefishinkaasi sida uu ku waramayo Cabdullaahi Axmed Nuur oo ah madaxa wararka iyo barnaamijyada Universal. dhibaatooyinkii wadanka ka dhacayay 25 sano ugu dambeeyay warbaahinta Universal waxyeello xoog leh oo kala duwan ayaa ka soo gaartay gaar ahaan haddii aan su'aashiina ka jawaabo waxaa si toos ah loo dilay Cabdi Muriidi Malaaq Marshaale oo majaajilista ahaa kana mid ahaa shaqaalaha Universal waxaana la toogtay oo kooxo hubeysan ay dileen 31 bishii 7 sanadkii 2012 waxaa sidoo kale dhaawac ay kooxaha hubeysan u geysteen wariye Maxamed Maxamuud Timcade oo isna u geeriyooday ugu dambeyn iyadoo dhaawacaasi uu la kulmay 22 Oktoobar sanadkii 2013 afar cisho kadibna dhaawacaasi ayuu ugu geeriyooday isbitaalka. argagax fara badan oo bahda saxaafadda soo food saaray ayay suura gashay in wariyaal fara badan ay dalka ka cararaan iyagoo ammaan ahaan u maciin biday dal aan koodi ahayn waxaana wariyaashaasi kamid ah Cumar Cabdi Xasan Cumar Caaqil oo xilligaasi ahaa madaxa shaqaalaha Radio Shabeelle iminkana ah agaasime ku-xigeenka xarunta Kenya uu ku leeyahay TV-ga qaranka Soomaaliyeed. kadib markii aan arkay dilalka wariyaasha Soomaaliyeed iyo xaaladda amni ee guud ahaan wadanka sanadii 2010 ayaan ka soo qaxay wadanka Soomaaliya anigoo xilligaas wixii ka dambeeyay soo guuray ama soo degay wadanka Kenya runtii waxaan ka mid ahaa wariyaasha Soomaaliyeed ee ka howlgalay gudaha dalka gaar ahaan caasimadda Soomaaliya Muqdisho waxaan ka shaqayn jiray ama ka howlgali jiray idaacadda Shabeelle oo aan mihnada saxaafadda ka soo bilaabay runtii markii ugu horeysay oo aan xaalad cabsi dareemo waxay ahayd sanadii 2009 markaas oo la dilay agaasimihii Radio Shabeelle Allah u naxariista Mukhtaar Maxamed Haraabe sidaas la mid ah isla sanadii 2009 waxa gudaha suuqa Bakaaraha lagu dilay Allah u naxariista agaasimihii idaacadda On Afrique Saciid Tahliil runtii wixii xilligaas ka dambeeyay waxaa soo kordhay hanjabaadaha iyo cagajugleynta lagu hayo wariyaasha Soomaaliyeed oo anigu qayb aan ka ahaa kooxaha al-shabaab oo inta badan lagu yaqaano dilalka wariyaasha Soomaaliyeed ayaa dhowr jeer hanjabaado iyo fariimo ay soo diray kadib markii aan u adkeysan waayay cagajugleynta iyo dhibaatooyinka wariyaasha lagu hayo waxaan go'aansaday inaan wadanka isaga soo qaxo si aan bal nafteeda u badbaadiyo oo meel dhaanta wadanka Soomaaliya aan ugu noolaado markii aan imid wadankan Kenya gaar ahaan caasimadda Nairobi ma aanan joojinin shaqadii bulshada aan u hayay iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan howlahayga saxaafadda ka sii bilaabay wadankan Kenya 2011 anigoo wadankan soo galay 2010 wixii xilligaas ka dambeeyay waxaan ka howlgalay Radio Barkulan oo 2011 ilaa 2015 aan la shaqeynayay halkaas oo aan shaqadii saxaafadda ka sii waday maadaama saxaafaddu ay tahay hobby ama wax aan jeclahay oo aan mar walba ku hamiyo in aan ummadda Soomaaliyeed ugu shaqeeyo waxyaabaha aan bartay hadda oo 2018 la marayo waxaan la howlgalaa ama ka shaqeeyaa warbaahinta qaranka Radio Muqdisho iyo SNTV ayaan halkan wadankan Kenya wakiil wareed uga ahay oo shaqadii aan ka sii wada marka ayaan la wadnaantahay barnaamijkan runtii inaad igu casuuntana aad baan kaaga mahadcelinayaa waana barnaamij loo baahan yahay in xaaladda wariyaasha Soomaaliyeed mar walba laga warhayo kasoo dilalka iyo dhaawaca waxa warfidiyeenada u dheeraa cagajugleyn iyo xarig joogto ah oo ay ku hayeen dhinacyada isaga soo horjeeda siyaasadda dalka waxaana idaacadaha ay arrintaasi saameysay kamid ah Radio Shabeelle oo muddo hawada laga saaray waxaana qaar kamid ah wariyaashooda loo taxaabay xabsiga sida uu ku waramayo Maxamed Axmed Jimcaale oo kamid ah wariyaashii xarigaasi la kulmay waxaa kaloo jiray
wariyaal iyo mas-uuliyiin kala duwan oo idaacadda ka tirsanaa ama hadda ka tirsan oo iyana la soo kulmay xabsi amaba xarig. waxaa sidoo kale idaacadda mar la doonaya in gebi ahaan la damiyo sida aan la wada socon 2015 ku dhowaad muddo sanad ah ayay dansaneed, iyadoo markaasi aan isleenahay waxaa la doonayay in gebi ahaan idaacadda la damiyo. waxaan ku adkaysanaynaa oo aan haddaba ugu shaqaynaa bulshadeenna in shabakadda warbaahinta Shabeelle ay shidan tahay, wararkii iyo barnaamijyadii looga bartana ay socdaan, mar walbana dadku in ay ogaadaan waxa meesha u haraya waa bulshada iyo warbaahinta oo awood jirta oo aan la xaqiri karin ah. maxamed diini waa wariye Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland. waxa uu isna nala wadaagay dareenkiisa ku aadan marka uu maqlo in la dilay shakhsi wariye ah oo mihnad qura ay ku wada shaqeynayeen. aad baa u mahadsantahay yaal. waxaan dareemaa wariye saaxiibkay ah markii la dilo, la xiro, la soo ataagareeyo. arrin waxay ila muuqataa aad iyo aad u qaraar oo ii taabanayso, qof walboo bile aadan ahna taabanayso. sababtoo ah qof aad isla shaqaynayseen, mihnad saxaafadeed aad ka wada tirsanaydeen, markii lagu yiraahdo caawa waa la dilay, sababta lagu dilay aadan garanaynin. nin ahaa bulshadiisa u shaqaynayay, la jecel yahay, firfircoon, markii la dilayo waa arrin ku taabanayso adiga shakhsi ahaan, weliba qofkii la shaqaynayay, saxaafaddana ka soo shaqeeyay. aniga waa ay i taabatay. asxaabaan isku rijim ahayn ama isku deegaan ama magaalo aan ka wada shaqaynaynay waa la dilay, qaar waa la dhaawacay, qaarna waa la xiray. waa arrin aad iyo aad ii taabatay oo aan dareemay laftirkayga cabsi weyn. ileen kaa saaxiibkay ama walaalkayga aan isla shaqaynaynay dilay, anigana ima dhaafayo. iyo asxaabteenna asxaab ka mid ah oo waddamo kaleento maanta ku go'doonsan, oo cabsi iyo argagax lagu riday iyo hanjabaado qaab daran. marka waxaan dareemaa aniga arrin aad iyo aad u xanuun badan oo weliba qof walba oo saxafina taabanayso iyo qof walba oo saaxiib la ahaa dhallinyaradaasi. marka asxaabteenni waxay naga mudan yihiin walaalaheen wariyaasheennii aan isla soo shaqaynaynay duco iyo kaalmayn xaasaskoodii iyo ilmahoodii. waa inaan xasuusannaa waxa hadda aan u qaban karno, waa in aynu samaynaa. aad baad u mahadsantahay yaalla fikirkaada. arrintaasi wacyigelinta waa inaan waxa weeye iska sii baraarujinaa. allah u naxariisto wariyaasheenni iyo saaxiibadeen. bartamihii sanadkii 2014 ayay sirdoonka Kenya magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii ka qabteen Xasan Xanafi Xaaji Cabdisalaan oo ka tirsanaa saraakiisha Al-Shabaab ee dhinaca warbaahinta, isla markaana la tuhunsanaa inuu qorsheeyay dilal fara badan oo loo geystay warfidiyeeno ka howlgalayay idaacadaha Muqdisho. xasan oo qaab qarsoodi ah ku joogay Kenya misana bedelay magaciisa saxda ah ayay suuro gashay xogo badan oo isweydaarsadeen sirdoonka Kenya iyo Soomaaliya in loo soo wareejiyo dalka Soomaaliya. waxaana markii ugu horeysay uu ka soo muuqday shaashada isagoo qaranaya ku lug lahaanshaha dilal qorsheysan oo Muqdisho loogu geystay tiro wariyaal ah. inkastoo barnaamijkaasi kadib waraysi uu siiyay hay'adda Journalists for Justice uu qiraalkaasi ku tilmaamay mid qori caaradiis looga keenay. si kastaba ha ahaatee, maxkamadaha darajooyinka kala duwan ee dalka oo dhowr mar ka soo hormuuqday bishii Maaj ee 2016, Xasan Xanafi Xaaji Cabdisalaan ayaa lagu xukumay dil toogasho, iyadoo ugu dambeyn bishii Abriil isla sanadkaasi lagu toogtay fagaaraha Iskool Buluusiyo. 3 sano ee ugu dambeysay ayaa lagu tilmaamaa inay aad u yaraadeen dilalka ka dhanka ah saxafiyiinta Soomaaliyeed, waxaana 2016 la dilay 3 wariye, iyadoo 2017 la dilay 5 wariye, halka sanadka magaalada Muqdisho lagu dilay wariye u shaqeynayay TV-ga SBS. Dunyadu waa wareegto, waagi kasta ay